dee qofkaana dardaaran looma reebin ayaan filaya damaq iyo jacayl bay badnaan doonaan baan malaynaya maasooyinkeena iyo gabayada halkan maan damaq iyo jacayl iyadana maxaad ka hal abuurtay waxaan ka hal abuuray wiil baa qisay la wadaagay asxaabteeda kamid ah waad marka wuxuu iga waramay in gabadh ay markii hore isku arday bay ahaan jireen xidhiidh baa ka dhaxan jiray waad kadib iyagoo xidhiidhka ka dhaxeeyo si fiican u wada socda ayaa wuxuu yidhi ardaydu waatay iskuulka marka laga soo daayo way iska lugeeyaan badankooda waxyaalaha dawliga iyo waxaa dhigta wacanka wuxuu yidhi inta aniga layga hor sii daayaa buu yidhi kala galaas baan ahayn intaan cararo buu yidhi oo gurigii maryaha soo dhigto ayaan iyada waddada isu taagaa inaan kaxeeyo wuxuu yidhi ma eego de inaan maanta o dhan arday ahay wax dhiganayo gurigii salaadii ka kalahayo gaajo ima qabato inantii unbaa suga wuxuu yidhi waan kaxeeyaa gurigoodiyo dee cabbaar jira baan la ku geeya haddana waan soo noqdaa wuxuu markaan gurigii soo galaabaan idhahdaa xaggaad ka daalanta shawaan maanta o dhan lugaynayo lugaajonaysba ogeynba wuxuu yidhi dhowr sano markaan sidii ku jiray ayaa inantii waxay iisoo bandhigtay in ay reerkoodu nin ku darayaan waad garta markaa aniguna wuxuu yidhi waxaan eegay dee inaanan anigu nolol siin karin maadaamuu yahayba qofaan jecelahay ay tahay dee anigu arday iskuul ku jirana arday aan ahayo markaa dee aanan nolosheedan u dhammaystiri karin waan garta kadib waan fasaxay waxaan ku dhawaad guursan kartaa fasax baanad u tahay maanta laga bilaabo balse ballan keliya ila gal inaan aanad xidhiidhkayga goynin oo sii wada xidhiidhka ood walaalnimo iigu bedesho macnaha aan kaa warhayo dee waxaad ku sugan tahay caafimaadkaaga waxyaalaha aan kula soo xidhiidho waad reerkaa doontaba noqon reerkaa doontaba noqon inaad xidhiidhkayga walaaltinimo aanad goynin waad ballantii baa iga qaaday buu yidhi haye wuxuu yidhi sidii baa igaga tagtay wuxuu yidhi inantii markay muddo aqal lahayd aan damco dee inaan qof wax jecel baan ahay waayaheedaan ogaado wuxuu yidhi markay 2 cashay la hadashay telefoonkii markii dambe way iga qabowday hadday iga qabatana ninkeedii igu dhiibta wuxuu yidhi heer ilaa ninkii bay sheekada gaadhay waddadan soo mari jiray buu xataa ogaaday markaan iskuulka iyo meelaha ama jaamacadda ka rawxo bartii buu ii galay isagoo dad wata wuxuu yidhi bur baa layla dhacay dhinac baa laygu tuuray daba dhigay gabadhayda waan gartay maba rabtay xaggaad adigu maxaad ka rabtaa haye wuxuu yidhi mana qanco halkii uun baan wuxuu soo taagana dabeetana wuxuu yidhi haddii ay 10 dhasho xataa ninkaan ka quusan baanay sugayin in lasoo furo kebigiisuba waa tahay dabeetana inaan kaas qisada yar bii la wadaagay oo maasadan ka curiyay waa tahay maasadaasi maasa xanuun badan bay noqon kartaa dee damaq baaba ku jira qisadeeduna dee waa taasoo qisa xanuun badan bay ahayd markaasi taasi baynu bal hadda bulshada la wadaagi doona insha Allah haddii dumarkaba dhammaan daraasad la qaado oo midii ugu doorka roon aniga deeq layga dhigo daqiiqad miyaan karaa intaan dibnahayga furo inaan la wadaago doob jacayl warkiisada maba la hadli karo miyaan kugu doorsadaa dunidan ruuxigula nool dookhaygu miyuu xushaa in aan dabadaa qof helo damiirku miyuu rabaa booskaaga inuu qof dego miyaan daydayaa mid kale hablaha daafaha ku nool adaa dabray oo qalbiga xusuus ku dahaaday iyo xanuun aniga degay dareenkal gacayl wadaa i kaa daba luudiye miyaan noqon laa damin daway aan kaa hadhay jacaylkan ay kaa daba dhigay damiin ma noqdeen mabaan kaa hadhay waan kaa hadhi lahaa waa tahay miyaan adigoo i dilay mid kale libintii dul suray misana caashaqii dafiray durbaanka u tumi lahaa inaad tahay dahabadii dadka baan ugu jeclaa maxay damaq iyo jacayl anoo daal iyo xanuun dareemin inaan dhib qabo ducdaad iga aadanay lagu ii soo duway maxay aadmigu dartaa daciif iyo ay arkeen dantiisa midaan noqon maxaan intan hawl dayacay dhankaaga anoo u diran duruufo ila hadheen oo shaqadii iyo wixii iyo aan ka hadhay maxaan adigoo i duray i deyriyey oo i nacay weliba dabin iyo sharqoo dhibkayga iigu daray haddana deymada indhuhu kalgacalka ugu daawaday maxaan adigoo i dagay diihaal iyo nabari baday xidhiirkii dacal ka jaray dadaal dheer ugu jiraa darmaan yeelaan ku helo oo weli ku sugaya waa tahay cajaayib dacas iyo haraad darxumo iyo ay ciil dahsoon dee qayaabada u maray aan cidibay loogin maxaan dardhadoon isiri jacayl ka daaweyn qandhadu maxaan dardhadoon isiri jacayl ka daaweyn qandhadu malaha duumaad qabtaa kana caaba ku hayso waxaan jacayl ma waxaan oo dhigtay xumada inta leeg waa tahay dadkaygu maxay dabiib doctor ila raadiyeen intuu daawooyin qoray yiri duhur iyo habeen hadeynana dalamkasi wuxuu dhakhtarun baa leegeeyaa xanuunkayga lama saaro dawan buu soo miisa waa cudurka kaaga la farda hadii laga gubo dameer waa xanuun aan haynin baa dawo looga soo qoray maxaan rajo daalacdoon dulqaad iyo samir ku waday durduuro hadaan lahaa jacaylkana daadihay waxa iga ka dalacay nasiibana ii darna
adigu iga doorsato jacaylkii daadisee allaha daayinaan baryaa haddaad dersin ubada iyo doob iyo gabdha daadisaba inuu nabsi duulaya dib ku soo celin maro ood mar wadeeda noqoto